Assalaamu calaykum caruurey sheeko cusub ayaa baranaynaa maanta sheekadan waxaa lagu magacaabaa dooligii doqonka ahaa iyo saaxiibadiisa muddo aad u fog ayaa meel waxaa ku noolaa dooliyaal gaar ahaan waxaa aad iyo aad iskugu dhawaa laba dooli oo lagu magacaabi jiray Sandheere iyo Gaabow wuxuu ahaa mid taxaddar badan caqlina badan laakiin Sandheere wuxuu ahaa qof ku riyooda qurux rayn inuu mar walba raaxaysto maalin maalmaha ka mid ah ayagoo warwareegaya waxay ku soo duldhaceen guri aad u qurux badan gurigaas ay lahaayeen qoys oo mugulaalo ah ama bisad mugulaalayaashii oo lagu yaqaanay dad inay yihiin wax dhagar badan oo ugaarsada wax walba oo agtooda soo mara ayaa wax yar ka hor ka dhaqaaqay gurigii ayagoo u baxay inay soo ugaarsadaan xayawaan ay cunaan dooliyaashii gaar ahaan Sandheere ayaa aad iyo aad u farxay markii ay arkeen gurigan mamnuuca ah oo sidiisba aan la geli karin oo maanta ayaga oo kaliya u banaan inay ku raaxaystaan oo ku baashaalaan isla markii gudaha u galeen ayaa waxay aad ula tacajabeen wax qurux iyo raaxo oo dhex taalay guriga dhexdiisa darbiga dhan waxaa ku dhegsanaa waxyaalo qurux badan oo lagu qurxiyay inkastoo mid ka mid ah waxyaalaha ku dhegsan guriga uu ahaa sawir tusinaya mugulaalayaashii oo cunaya wax ay soo qabsadeen hal qol ayaa waxaa galay Sandheere markaas ayaa wuxuu arkay waxyaalo la isku qurqurxiyo oo miiska saaran indhihiisa ayaa soo birbirqay kadib markii uu arkay waxyaalahaas la isku qurqurxiyo oo miiska saaran iyo miraayadaha meesha ku dhegsan mar walba wuxuu dareemi jiray inuu dadka kale ka liito maanta ayaa wuxuu go'aansaday inay tahay maalintii quruxdiisa uu muujin lahaa markaas ayaa wuxuu bilaabay inuu isqurqurxiyo oo uu marmarsado waxay meesha saarnaa saaxiibkiisa Gaabow ayaa ugu baaqay in ay halis tahay meesha in lagu sii nagaado oo haddii ay ku sii jiraan in mugulaalayaalka ay ku soo laaban karaan oo naftooda halis ay gelin karaan laakiin Sandheere ayaa arrinta iska dhaga tiray oo bilaabay inuu ku fariisto oo miraayad mar dhan uu isku eego sida uu qurux badan yahay Gaabow uu arkay inuu saaxiibkiisa isbedelay oo dabeecadiisa oo dhan isbedeshay ayaa si walba iskugu dayay inuu caqligiisa kaashado oo uu waaniyo laakiin taladiisa ayuu diiday inuu qaato sababtoo ah Sandheere waxaa waalay humaaga uu ku arkay miraayadihii meesha ku yaalay oo la tacajubay quruxda uu la soo baxay wuxuu aaminay inuu yahay qofka dadka oo dhan ka bedelan oo quruxdiisana ay tahay qurux weligiis adduunka aan la arkin wuxuuna iska dhaga tiray waanadii oo saaxiibkiisa u soo jeediyay Gaabow oo uu sheegay meesha inay ka dhaqaaqaan saaxiibkiisa Gaabow ay murug qabatay asagoo aad u naxsan saaxiibkiisa waxa ku dhacay iyo doqonnimadan halka ay ugu timid markaasaa wuxuu yiri war qurux laguma noqdo waxaad isbarmarisay iyo humaagaaga oo aad ku aragtay miraayadaha ee meeshan ka soo dhaqaaq saaxiibow yaa lagu cunine isla markii Gaabow ayaa wuxuu arkay mugulaalayaalkii oo soo laabtay ayagoo aad iyo aad u daalan laakiin diyaar u ah inay ku soo boodaan markaas ayuu aad iyo aad u naxay wuxuuna u qayliyay saaxiibkiisa Sandheere uu ku yiri ka soo bax meeshaas way soo laabteen mugulaalayaalkii yaa lagu cunin ee soo orod laakiin Sandheere ayaa waxaasoo dhan ay ka idhasaabtay quruxdiisa inuu miraayad isku dhex fiiriyo oo isla tacajubo markaasaa dooliyaalkii kale oo dhan meesha ka wada ordeen ayagoo ka baxay god walba oo meesha ku yaalay inay banaanka u baxaan oo si dirqi ah nafsadooda ula baxsadeen laakiin Sandheere miraayad ayuu kor fadhiyay isagoo isku fiirinaya quruxdiisa isla markii ayaa meesha waxaa soo galay mugulaalayaalkii markaasaa waxay arkeen dooligan oo ismarmariyey waxyaalo make-up oo dahab ah asagoo birbirqaaya markaasay amini waayeen maanta nasiibkooda markaasay hal mar ku soo boodeen oo ay qabsadeen oo meesha ay ku baashaaleen markaasaa mugulaalayaalkii waxay ku sheekaysteen maanta oo dhan waan soo daalnay saan u soo raadinaynay waxaan soo ugaarsano oo aan cunno laakiin waxa aan raadinaynay asagoo dahab ismariyey ayuuba gurigeen noo dhex yaalay meeshan ay noo taalay qadadayna maanta umaba ahaynba inaan baxno aan soo wareegno oo daal una soo qabto saaxiibkiisa Gaabow ayaa meel fog ka fiirsanayay si saaxiibkiisa loo cunay asagoo aad uga xumaaday si saaxiibkiisa u dambaysay iyo dhibaatada ku dhacday wuxuuna aad iyo aad ugu murgay inuu si fiican u waaniyey oo ugu digay inuu meesha ka soo dhaqaaqo si aan loo cunin laakiin uu iska dhaga tiray mana jirin wax uu ka qaban karay maadaama saaxiibkiisu u dhagaysan waayey waanadii loo soo jeediyey caruurey sheekadan waxa aan ka baran ayaa waxay tahay cashirka ku jira in ay muhiim tahay marka dadka saaxiibada ama dadka familka
ay ku waaniyaan, ay talo kuu soo jeediyaan, oo waxyaalaha xunxun ay kaa celiyaan in aad dhageysatid, oo aadan noqon qof dadka iskala weyn oo tala dadka marka lala taliyo oo warkooda iska dhagatira, oo waxyaalaha loogu digayo oo xumaanta ah ka hari waaya, sababtoo ah cawaaqib xumo weyn ayaa ka dhalanaysa oo keenaysa in dhibaato naftaada xataa halis gelin karta marka dambe ay kugu dhacdo sidii san dheer ay ugu dhacday oo kale, oo diiday inuu dhageysto taladii saaxiibadiisa oo xataa markay baxsanayeen ugu digaya inuu meesha ka soo dhaqaaqo iska dhagabtiray oo meesha lagu cunay markii ugu dambeysay. Caruuray, sheekadan halkan inoogu eg tahay, ilaa sheeko kale aan ku kulmayno waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.